تسوى لدوتي حقدا معيا هلي لاقو دوضا هلي سقفكي دميلي دلميقا كمولدي دلميقا كمولدي أغسى ولا دمية ما بوك سيدرينا صارك عدد كدنا مقابل دقي دلميقي يولي باتنا أقودي بسندونا قول كلمة دوبا سفارة مدوبا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. فنان كان واد قرنيسان ويل كان وحلي خالد كامل ويل كان تبان بري وحرين مقالة هرقيسة محال لغو حرين ويل كان دي حكت سمان تيدك انت بدن ياي هلين لكن تبان بري وعاو كوي تبان انو قانسو حرين ياي وحانا لغو هايستا الله حرين ويل كان هاس oo qaaday oo ku difaacay walaalaha Falastiin Gaza oo ku difaacay iyo Masjid Aqsa oo fikirkiisa uu ku cabiray oo uu diidan yahay in Somaliland maanta iyagoo sheeganay inay muslimiin yihiin inay safaarad qoys ka furteen seed u qaadi kartaa heestii marka in yar baa la sii daayay inta kale weli way lama sii deen lama fasixin eedan la fasixin baa ninkii iyo xabsi ilaaliyay waxaa bilowday marka kacdoon bulsho yaa bilowday oo bulshadu waxay leeyihiin war haddii qofku suugaan uu wax ku cabiro miyaa la xiri haddii sheekh misaajid ka istaaga ma la xiri haddii shacabku ay banaanada ka hadlaan miyaa la xiri kii social media ka hadlaan ma la xiri maxaa noo dhiman marka haddii Muuse Hantraab aan ka soo cararnay oo niri maalinkii la codeynay geeya hal gubee hadda maanta maxaa isbedelay haddii magaalada Burco isbitaalada ay xiran yihiin oo caaw u dambaysa canshuur dheeri ah Soomaaliya maanta la saaray oo dhawaan hirgeli doonto oo shidaalkii uu qaaliyo gawaari maanta meel iska dhigay haddii ninkan xageebu u socda xageebu u wadaa Somaliland waxa kaga daran wuxuu sameystay dhalinyar dhar cad ah oo mishaar gooni ah la siiyo gunooyin qaadanaya kuwaas oo dadka soo basaasaya soo jaajuusaya soo tiftifaya uu sameystay oo makhaayadihii joogo meel kasta mataqaana joogo cid kasta oo intuu kula sheekaysto ku soo hadal qaadaya ku fijartii hawlaheedii markaad ka hadashaa maca salaam waa lagu weyn danta la galay maxay marka danta la galay waxa weeye Somaliland asagoo arkaya cirro inuu god madow inuu ku riday in haddana dadka la yiraahdo waxa weeye wixii anaga aan rabnay اعترافكي gooni goosadkii baad ka soo horjeedaa aqoonsiga ka soo horjeedaa magacay u sameeyeen aqoonsi ay ku leeyihiin aqoonsi iyo oo la bixin saadaradeed marka Khalid Kaamil haddii uu suugaan ku cabiray oo uu diido walaalaha reer Falastiin uu hiiliyay dambi ma gelin laakiin Somaliland dambi bay ka tahay wadakii reer Somaliland waxay dhaheen waxa magaalada Hargeysa iyo Berberi meelba soo buux dhaafiyay koofiyad yar socoto Imaaraad Ethiopian Oromo u badan yaa yaacay meel walba Soomaalidii iyaga la dhashay waxa la yiri habbaxaan lama ogolo wala xiri wala ciqaabi wala jirdiri wala dhibaateen lama ogolo maxaa waa cadow Jabuutiyan waa cadow Samaroon waa cadow Ciise waa cadow Soomaalida waa cadow ya inta dhammaan markay Soomaalida cadow ay noqdeen yaa soo haray maanta waxaan saaka aan ku sii daayay dooradii oo bidaan media ka daabateen gabar kullay markaad wajigeesa u fiiriso muslimaad ba u ekeed adduunka waxay tir waxaan ugu jeclahay meel lagu noolaado meel la tago meel la joogo waxaan ugu jeclahay bay tiri
israa'iil adduunku waxaan ugu jeclahay meel lagu noolaado la joogo halkaa taasoo ku tusinaysa in nimankaas dembiyada ay geysanayeen inay ku faraxsanayd in maalinkii dhibaato dhacdo oo reer falastiin dhibaato la gaarsiiyo inay farxayso maalinkii nimanka wax soo gaarana inay ka naxayso taa marka waxay kusinaysaa marka jacaylka nimanka ay jeceshahay iyo kula saaxiibtay kuwaasay la mid yihiin marka cabdiraxmaan ciro wuxuu haystaa koox gabadhaan la mida iyo kuwo kalaba ninkale waxaan arkayay marna ahaa wariye ahaa marna qoraa ah oo wada garanaysaan caaw wuxuu soo qoray sheekh aadan siira ilaahay naxariistay iyo qoraal ka qoray markaas wuxuu yidhi ninkan siirada uu noo soo jeedinayay nin dhaqan wanaagsan oo kan buu ahaa siirada uu noo soo jeedinayana siira carbeed yay ahayd siira carbeed oo la jeedo waa siirada nabi sal salam oo uu haddee caan ku ahaa oo kutubtiisa ay yaalaan uu mataqaana cajaradii uu duubay ay duban yihiin ay yaalaan oo siirana uu kaga hadlayo wuxuu u yaqaanaa siiradii carbeed siira carbeed subxaan allah waa gaalnimo weyn iyo mataqaana ku dhacay wuxuu diidan yahay siirada nabiga sal ly slam inuu dhaho ma ogolo marka waxaa somalilan ku soo batay dad badan oo ah nimanka la yiraahdo cilmaaniyiinta ee aan diin lahayn waxaa ku soo batay kuwo kale oo majuusiyiin ah waxaa ku soo batay kristaan waxaa ku soo batay sahyuuni waxaa ku soo batay waxaasoo dhan maanta somalilan oo laga heli subxaan allah culimadii markii meesha joogtay dadaalkii ay bixinayeen midhihii ay geliyeen somalilan oo ay soo saarayeen jiil bedele iyaga waxaa ka saameyn batay adna aadan iyo kuwo yar dadkii soo saareen wax maalin la yaabay wiil baa intuu burca ka cararay ka tegey yaa wuxuu tegey Addis Ababa muuqaal halkaa lagaga duubay wuxuu yidhi gurigeyga waxaa ku sawiran baadarigii hebel oo ku sawiran adduunkan ugu jeclahay nin kristan baan ahay ninkan baan ahay dhalinyar badan oo weliba reer burca ah baraha bulshada ka aragteen jacaylkay u qabaan keliya oo ku leeyahay gurigeyga silibka ku xardhan oo ku yaala waa ninkii diinta la baray islaamka u dhashay ahaa mataqaana la doonayay inuu diinta islaamka barto oo dadka ugu yeero maadaama asaga uu haysto diinta saxda ahayd maadaama isaga uu raxmad iyo naxariis uu haysto inuu dadka kala gaarsiiyey naxariis iyo raxmad yaa wuxuu sameeyey inuu iska dhigo oo u yiraahdo dabkan la geli halkuu iga badbaadin lahaa isaga u baahan badbaada marka in la badbaadiyo marka xaaladahaas yaa horta mataqaana yaa taagan somalilan meel adag bay mataqaana iyo maraysaa khaalid kaamil oo dadka inta fanka dhegaysata ay taqaano inta kale ma taqaano haddii la dhaho qofkan waa caan waxa uu caan ku yahay inta isaga kotadiisa ku xiran ama hawsha isaga uu sameeyo ku xiran ba taqaano ee dadka dhan ma yaqaanaan saa daraadeed marka wiilkaas wuu xiran yahay waxaana loo xirayna heestaa sideed u qaaday sidee ku suurta gashay inaad naga soo horjeesato yaa mataa wiilkaas iyo maanta wuu xiran yahay